يا رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي المهد سبحانه وتعالى إلهي وكلي مهدي. waxaan jeclahay inaan wasaxaafada ku soo koobo dhowr qodob oo hadda taagan oo ay ka mid tahay socdaalkaygii aan ku tagay Nairobi. marka horeysa waxaan hambalyeynaa subxaan dadkii ka soo shaqeeyay magaalada nabadii Elf Weyn. waxaan leenahay ilaahay ay jazaa siiyo beelihii amba qolooyinkiisa ayay si fiican gacanta ku siiyeen waan hambalyeynaa. laakiin waxay u baahan tahay nabad aan lahayn waxa dadku ducaysan nabadii caano waa in dhulkaas la geeyaa horumarka la geeyaa baan leenahay. dawladdu ka hawlgashaa nabadgelyada la adkeeyaa ciidan midaysan oo reer Soomaaliya la geeyaa shaqooyin laga abuuraa ayaan leenahay oo nabadda la sustain gareeyaa baan leenahay halkaas. waxaan iyagana hambaleynayaa ninka loo doortay magaalada xusbiga Soomaalida Itoobiya Axmed Shide ayaan aad iyo aad u hambaleynaynaa. inaga hore waan u sheegay soonaha shanaad wuxuu noo yahay siday ruushka uu yahay bariga Ukraine ay u tahay 160 dadkeena ku nool. waxaan leenahay dhulkaasi waa dhul shantii Soomaali ku jira ilaa Mooyaale ilaa Ashaca oo labada kooneed Soomaalidu degto kanka ah way ku jiraan. dhulkaas waxa lagu dooran karaa si cadaalad lagu xukumo. waxa ka dhac jiray xukunkii ka hore ka jiray xukun wuxuu ahaa tacaddi badan keenay taariikhda aan lagu haynin tacaddi halka ka dhacay wax meel adduun ka dhacay adduunka cusub ee modernka ah waqti civilization cusub aanu ka dhacay. waxaan leenahay in dadka Soomaaliyeed halkaas si cadaalad ah ay khayraadkiisa iyo khayraadka hadda soo baxay ku hor jirayba ay loo maamulo nidaam dawladeed oo cadaalad ku dhisan oo Soomaaliyeysan oo qabiileysneen in laga dhisaan jecelahay nabadgelyada la siiyo dadka Oromada ah iyo dadka Itoobiya oo dhanna waxaan dad diig iyo jaarnimo oo wadaaga in la isku diro qoomiyadaha la isku kiciyo oo adoo madaxa aad ka hawlgashid in qoomiyadu isdilaan si aad kursiga u haysatidna waxaan leenahay waxa soo xaraan weey. marka waan soo dhaweynaynaa arinta waan kala hadlay maalintii dhawto on elfta waan kala hadlay waanu ka wada hadalay on elfta iyo dhaqdhaqaaqa soonaha shanaadba halkan baa laga bilaabay lixdameediyadii jabadii horeysay maqdal daahir sidii halkan baynu ka bilownay. labadii dagaal ee dhacay 4 halkan baa ahayd quwadu halka ka raacday Soomaaliland beed waa dhulkii aynu u tagnay aawadood inaan Soomaali weyn ka bilowno in xornimadeena u sirqayna bay ka mid tahay. dhulkaasi waa dhul aynu kala maarmin. waxaan jecelahay inaynu waan isku xiranahay in dhulkaasi nabad ahaada. dawladda waxaan leenahay inay roorkeeda ka ciyaartaa oo dadkaas gacan siisa Soomaaliya halka degan si loo mideyn lahaa. waxa khayraadka Itoobiya kula qaybsan kartaan iyo awoodaba idinka Soomaalinimo ah oo midaysan baan leeyahay taasna. waxaan halkan iyadana jecelahay inaan ka hambaliyo gudida musuqmaasuq dalkan musuqmaasuq iyo qabyaalad ayaa ragaadisay. taas waxay kaliftay in u bixini caruurteeni ay naftooda ku horaan qabtaan magaalada Liibiya. waxaan ka xumahay inaan jaamacadda ka soo saaro Fuaad la yiraahdo 2010 in maal taxamar lagu dilay. taas waxay ku tusaysaa quusta dhalinyarteena taagan tahay. quusta maxaa keenaya waxa weeye keenaya cadaalad darrada qabyaaladda eexda wali intaasaan jirnaa Soomaaliland moojaane wax u kala eexda inankii inantu dhashay inankii inanku dhashay adduunku ma arag qabyaalad iyo iyo musuqmaasuq aan accountable ahayn wuxuu fariistay dalkeenu fariistay.
saasna dal laguma dhisi karo maanta maciishadu cirkay maraysaa shidaalka maanta halku mariyo iyo halku taagnaa maalintii dowladda cusub qabsatay maciishadu halkay maraysa waa arkaysaan waxaan leenahay dalkan waxaa loo baahan yahay dadka la mideeyo waxaa loo baahan yahay dowladdu inay shaqayso hadda moodaa inay teegadu hadda beriga qabsatay beriga oy taagan yihiin taayiradii waxaa loo baahan yahay in dynamics ka socdo dalka adduunka hareerihiina in lala socdaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dadka waxgashanaya waddanka waxgashanaya loo fududeeyo oo sharcigu shaqeeyo DB woodu way shaqayn laadahay waxay la shaqayn laadahay waxa weeye kulba reer baa qabsanaya kulba nin baa qabsanaya kulba hay'ad baa qabsanaysa maalintii dib u dhacdaana inaga khasaare inagu tahay waa meesha qura maanta aan samaysanay heshiis galay waxaa loo qorsheeyey 1,250,000 container inay ka soo degaan Jabuuti 800 container baa ka soo degta oo meesha shaqaalaha Jabuuti ugu badan yihiin marka waxa weeye inaynu dadka investmentka maalgashanaya amba ahaadeen dadka qaranka Soomaaliland ama dad ahaadeen shisheeye loo fududeeyaa weeye musuqmaasuqa laga daayaa baan leenahay waxaan aad iyo aad u boorinayaa maareeyaha biyaha waad ogtihiin lacagta lagu shubay ee Soomaaliya Hargeysa biyo lagu sameeyo waxaa jira dilaalin yar yar oo hadda doonaysa in mashruuci kastaba ay dilaalaan oo dadka ka dhaxeen mashruuca lacagtiisa waxa badan waxa bixisay waxa weeye Jarmalka bixiyay dawladda Jarmalku waa dawladda ugu deeqta badan baa weeye Soomaaliland hadda waxay noo sidaa inoo soo wadaa iskuulo ah technical schools waxa leenahay laga daayo maareeyaha magaranaysa musuqmaasuqa iyo dilaalista meeraysanaysa waxa leenahay madaxweynaha waa inaan birka la sameeyo si cadaalad loo sameeyo mid kasta wuxuu soo kaxaysanayaa company yaro aqoontiisa iyo ikumadkiisa aan hagaagsaneen oo lacag baan siinaya iyo campaign gareeya halaga daaliyo birka marka la furiyo bahalaha laga daayo campaign dhalinyarta yar hadda hunguriga la soo baxdayna waxa leenahay xishooda dhalinyarta xishooda inta madaxtooyada soo dhegdhegaysaan ilaanimada joojiya baan leenahay waxaan ka sheekaynayaa insha Allah taala arinta caaraan sheegaya caarne waxa weeye waa tilmaam xun inuu yahay yani marka ay jabhadi ka dhex samaysay dal da waxay muuqataa inay tahay dal magaalada mustaqbalkiisu aan fiicneen innaga waxaan u aragnaa arinta caarne inay ahayd arin la qoorsaday waxay ahayd in lagu daro arintii ceel afweyn waxay ahayd arinta wax dhalisay ninkaas oo ciidamada ka goosto waxay ahayd arintii afweyn ka dhacday waxay nabadii la waday in isna lagu daraabe package la iska dhigay haddana waxa leenahay oo abil gareena caare Soomaaliya way jirisaa nin mulkhumruq leh ma burburin karo waxa fool xumo ku ah oo taariikh xumo ku ah inaad maanta cadowgii cadowgeena aan noo ahaaye dalkeena ku soo duulay inaad tiraahdo waxay siiyeen saldhig waa fool xumo ku tahay waxaa wada hadalada madaxweynuhu ku furay dawladdu waxa weeye inaad aqoonta weeye grievanceska aad leedahay ka cabashada inaad keentaa weeye taariikhda Soomaaliya kama dhicin cadow la isku soo raaco waa barmadow baa weeye maalinta ninka kaliya ahayd anaga nidaalaya la taaban beersanaala madaxweynaha u tagay marka beeshaad uga codsatay oo ninka ayaa la taabanin ayaa moodaya reer loo yarinayo arrintiisa hadalkaadiyo tolkii waa qaban doonay laakiin hadda waxa muuqataa inaad fogaatay laakiin Soomaaliya waxaan ku leeyahay ma burburin kartid adoon baa iscaabeynaya qaado heshiiska qaado waxaan jeclahay inaan ka sheekeeyo socdaalkaygii aan tagay Nairobi 3 maalmood iyo 4 habeen ku maqnaa dan qaran baheed guul fiican waan ka soo gaarnay beentii lagu dhuriyay magaalada Saaxay international community-ga waan ka soo baabinay Soomaaliya sanaagna in la wada dago waan u soo sheegnay togaraqan ee dalka Soomaaliya tahayna waan ka soo sheegnay
puntland wax la yidhahdo dal inaanu jirin waanu soo sheegnay labada gobol ee Soomaaliya ugu bisaarsanaa ugu faqiirsanaa ugu dadka yaraa bay ahaayeen inaanay waxba naga qaadi karayna hadday soo dhaqaaqaana aanu qabsan karno garowna waanu sheegnay xagga cumaamada halkaa la fadhiya ee Soomaaliya sanaag anaga lehna waxa leeyahay ka daaya sheegashada wala ognahay si dalka loo wada leeyahay gobol qura oo Soomaaliland oo qabiil kaliya deegaan ma jiro beenta ku dhurisa international community waxaan ka joojiyay beenta joojiyalena waxaanu aad iyo aad aan ku soo boorinay islana meel degnay in waxa dhan mushkiladu ay tahay Soomaaliland deel meedka lagu xiray ani qof aan dabaalad aqoon hadaa qof dabaalad yaqaan lagu xiro dawuu iska furfura inta la degin si aanu nala degin waxaan wada hadalay bilaabay Soomaaliya hala bilaabaan nidhi madaxweynaha waxaan kula ku boorinay inuu wada hadalay isna culays saara si loo bilaabi lahaa laga baxaa tuuladan yar Tugaraq laga baxaa beenbeenta laga fadhiyo Garoowe laga baxaa oo la wada hadlaa Soomaaliya dalku wuxuu ahaa Muqdisho iyo Hargeysa tuulada yar meel ka soo baxay karan mayno hadda adduunku oo tagtagaba marka waxaan leenahay deel Garoowe warwaan iskaranayna Soomaali maanta nabad u baahan tahay maanta si isku baahan tuulada isku baahna lana waxa weeye Ethiopia ka socda magaalada saay isbedel weyn isbedelkaas Soomaalinimo ayaa lagu hagaajin karaa Soomaaliland waa dal jiray waa kii 60kii ahaa waa kii constitution-kiina samaysanay laba dal isku darsamay inay dhaal iska taana ma habeen baabacada teema ka soo bixi Soomaaliland Soomaaliya ku soo noqon mayso waxaan ugu soo noqonay Djibouti baa iska tagtay 17kii NFD baa Maxamed Siyaad Barre fasaxay 18kii Daa'if Fahad ku heshiisay Aramoy eedkii Mingisde ayaa ku heshiisay Soomaaliya tagay wax anaga dusha naga kii saaray noo duufushantiin markan baarnay waxa weeye laantii noolan mayno laantii hadaba dhintaan leena diiman mayno insha Allah taala walaa diiman maalinay hadaa doonaysan laba dalo walaal noqono baan ku soo wada hadalay waxaan ku soo hadalnay laba dalo walaala oo wax wada yeelan kara military pact baan jecelahay Soomaaliya maanta iyada dalka ugu foolxumada idinka keenay baan foolxumadana idinka keenay anagu inteedii waan hagaajinay intiini baa qasan ay dila hagaajino walaalaha oo noo soconayaan siyaasiin badan reer Soomaaliya soo aragnay Axmed Madow baan soo aragnay Axmed Madow isna saddex gobol goostay waxaan ahay dawlad baan ahay ayuu teeni dafiriya ma dafiriya dawlad baa hayeen buu wanaka uu aqli wanaagsan wogta marka waynu Xasan Sharif Xasan waan soo aragnay waa inaan dadka saaxiibi ka samaysan ma inaan Mansuur fariisan ka caaytama ma shaqada weyn oo dhamaatay ma dawladda aqliyeena Mansuur dhaafi waaye ma waaye adduunka la macaamilna saaxiibiyeena inaad baday Soomaaliya saaxiibayaan waxaan halka ku soo dhameeyay waxa weeye madaxweynaha waxa leeyahay waxa loo shaqo badan baa jirta challenge ka badan ma hagaagi hadii aan gudaha la hagaajin oo dadka la midaynin dadka la midayn leenahay ha laga soo saaro sharci nimankan uqaash ah dadka wada mikrofoonka sita nimba wuxuu doona ku hadlaya ee hanjabiyo wuxuu Axmed Madow igu yiri shanta Soomaali meel intuu soo fariista reer kale uu hanjabiyo Soomaaliland balaga haya ayuu yiri waa marta meesha uu garay kaga helay way markan kareemay waxaan leeyahay adeer xishooda dawladda haddaan sharci wadda kala qabanin qof kasta sharci gacanta ku qaadanaya waa in sharci laga soo saaro waa in magacdilka shaqo laga soo saaro waxaan iyadana aad qolada in kastoo aan baarlamaankiinu yahay baarlamaan waqtigiisa dhaafay handana musuqmaasuq soo saaray waxaan jecelahay gunta laga gaaro waa in dalkan uu ragaadiyo musuqmaasuq waxaan caan ku noqonay oo caado inuu ahaan jirin in lagu tartamo boobka ummadda dadkan arkay aan maalintii mag ula cunteeya in xoolooda la cuno qaaxana ka qaadi doona waa arki doontaan TB ka qaadi doona marka wassalaamu calaykum